بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم عفو وناكسن ومالنتي لبي توناد بيش بركيسن رمضان waxaan ku jirnaa maalmihii fadliga badnaa ee Ramadaanka waa bishii khayrka iyo barwaaqada bishii cafiska iyo dimi dhaafka maanta mawduuceen waxaan u hadlaynaa qoyska iyo Ramadaanka. Socdaal Training Company waxaad ka heli kartaa qalabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan sida qasaaladaha, fariijyada noocyadooda kala duwan, dhalooyinka TV-yada guryaha, mukaafiyada, kuukarada noocyadooda kala duwan, iyo sidoo kale haamaha gaaska yar iyo weyn, iyo dhammaanba noocyada qalabka elektarooniga ee loo isticmaalo guryaha. dhammaan agabyadan kala duwan waxaad ka heli kartaa xarumahooda kala duwan sida xarunta weyn ee ku taala moolka Macalin Biimaalow oo ku yaalo kasoo horjeedka masaajidka Macalin Biimaalow iyo xarumahooda kala duwan ee suuqa Bakaaraha. wixii faahfaahin taadeeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashadeeda kaga muuqda. quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xiriirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko qoys waxa la dhahaa aabe hooyo iyo caruur marka Ramadaanka doorka aabahan ka bilaabayna aabaha Ramadaanka mas'uuliyad ayaa saaran mas'uuliyadda ugu weyn saaran waxay hagaajinta caruurtiisa haddii kuwa caruurta qaan gaaray oo waa inuu soonka faraa uu yiraahdo sooma kuwa yararka aan tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda inuu hagaajiyo caruurta ku dhiirigeliya quraanka inay akhriyaan duceystaan masaajidka ay ku soo dukadaan waxaa doorka xilliga afurkana hal meel lagu wada afura sidoo kale aabaha waxaa saaran doolka caruurtiisa inuu ogaado ku dhiirigeliya kuwa yararka inay soomaan maalmaha jimcaha kala si ay u sii bartaan tarbiya u jecelaadaan laakiin lama rabo aabaha inuu nacsiyo waxaa arkaysa waalidiinta qaar inay ilmaha ku cabsi gelinayaan haddii waxaa sameeyay maanta bari waa soomaysaa maahan cibaado cabsi gelin maaha waxaa laga rabaa aabaha waxaa laga rabaa inuu caruurtiisa ku cabsi gelin Ramadaanka sababtoo haddii waxa caruur qofka yar uu yar yahay ilmo waaye haddii aad ku cabsi geliso cibaadadii waxa laga yaabaa ay saameyn ku yeelato qalbigiisa doorka hooyada waa laf dhabarka guriga waana laf dhabarka qoyska hooyada waa qofka ugu muhiimsan ee akhlaaqda iyo tarbiyada caruurta bar hooyada waxa waajib ah oo saaran inay caruurteeda kuwa Ramadaanka gaaray ay dhahdo quraanka akhriya jadwal ay u sameeyso quraanka inay akhriyaan ay ku dhiirigeliso masaajidka inay aadaan salaada jamaacada inay ku soo dukadaan duceystaan sidoo kale caruurta yararkan ay jeclaysiiso soonka ee dhahan hooyo macnaha ay dhiirigelis ay dhahdo maalinta jimcaha hebela soomay maalin hebela xitaa ugu yaraan qofka ilmaha yararka deena awoodin saacado kamid ah la dareensiyo cibaadada jaceelka hooyada laga maro inay caruurteeda ku cabsi geliso sida aabaha kale hadii wax sameeysa biri waa ku soomina suxuura ku soo kicina maan waa waxa cibaado waana dhaqanka Soomaaliga inta badan Soomaalideena anaga aan nahay inta badan waalidiinteena qaar yaana dhihin iyaga waxay caruurta ku cabsi geliyaan soonka maan waxa lagu cabsi geliyo caruurta bal waa wax lagu dhiirigeliyo caruurta inay soomaan haddii awoodaan kuwa yar kuwa kalena saacada kamid ah 30 daqiiqo 40 daqiiqo bal awoodooda bal waxa la jeclaysiyaa soonka waxayna jeclaanayaan caruurta waxay ku barbaaraan haddii cibaadada wanaagga laga tusiyo oo soonka iyo waxyaabaha kale khayrka jacayl way jeclaanayaan waxa tusaale ku filan hooyada markay salaada dukanayso caruurta yararka gabdhaha yararka ama wiilasha ay dhashay inta badan hooyada ayay dhaanjiyaan sali ay soo qaatan iyagoo yar oo 1 sano iyo 1 sano bar jir sida waalidka sameeynaya oo dukanaya sameeynaya bal kuwa 6 jir ah 5 jir ah waalidka sooman oo maanta aabe maxamed la karinayo miya ay dhahan waa soomanahay bal iyagan maxay dareemayaan wanaaga soonka iyo khayrka inuu yahay wax wanaagsan oo khayr ah way ku barbaarayaan way ku qoys barbaar oo diin ku barbaaray noqonayaan doorka caruurta waxa laga rabaa
caruurta roonka oo 10 jirka iyo 12 jirka aya waxaa doorka weyn inay ka qaataan maalimaha Ramadaanka in iyaga naftooda Quraanka akhriyaan amarka hooyada ee bixinaysa aabaha waxay bixinayaan ay yeelaan qaylada ay yareeyaan ciyaarta banooniga iyo waxyaabaha kale oo aan wanaagsaneyn inay iska dhaafaan bisha oo dhan inkastoo aalmiitada iyo waxyaabaha qaar caruurta ay u tahay wax door ay sameeyaan laakiin bisha barakeysan Ramadaan inay joojiyaan waxa oo dhan waan diris kala dhibin waan hooyo aabba la dhibin aan lagu qaylin diriska oo dhaqanka caruurteena Soomaalida waxay waa ciyaal iska tuuriya badan oo hab dhaqanka bulshada oo keenaysa waa caruur dagaal badan maahan wax lala yaabo caruurta saas waxay anaga bii'adeena dhama saas ka waxay ummadda waxay iska celis ku jirtaan marka maalmahaas in la joojiyo caruurta waalidka dhan iyo diriska dhan qoyska iyo waxa meesha oo dadka wada degan waxa la rabaa inay door weyn ka qaataan bishaas caruurta inay hagaajiyaan dhaqankooda mar walba laga rabaa bisha kaliya laakiin bisha qaasatan buuqa ila yareeyo tuuriya si cibaadada loo helo fursad ay dadku ku cibaadaystaan sidoo kale bisha qoyska waa waxa ugu weyn bisha Ramadaan sababtoo qoyska ma is arkaa waxa la yaabaa maalmaha kale aabaha inuu imaan guriga shaqo iyo arrimo kale inuu ku maqan yahay laakiin Ramadaanka afurka dhan qoyska dhan hal meel ku afuray si jimaaci ah hal meel ayaa lagu duceysanaa waa bil khayr ah oo baraka leh barakada ugu weyn waa qoys sababtoo maalmaha kale bilooyinka waxa laga yaabaa qoyska inuu is arkin aabba inuu caruurtiisa arkin mar qaar uu imaanay caruurtiisa hurdayso asagoo adduunyo kale iyo waxyaabo kale ku maqan shaqo ku maqan hooyada sidoo kale waxay jaanis kuma helaan xaajiga laakiin bisha Ramadaan waa bishii fursadda waa bishii khayraadka sidoo kale waxyaabaha kale reeban qoyska waxa arkay qoysas badan oo xilliga Ramadaanka dhalooyin soo iibsanay maxaa smart TV oo ku tashanaya waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo inta badan waxay afurkii daaranaya waxa jira barnaamijyo ay sameeyaan idaacadaha iyo telefishinada waaweynka iyo dadka youtuberada iyo baraha bulshada ku jira riwaayado iyo inta badan riwaayadaas ay ku mashquulaan ma aan halka bedelka khayrka iyo caadiga muxaadarooyinka inay dhageystaan caruurta la baro culimada iyo dadka uqaasha ah oo macnaha waxyaabaha wanaag sheega bal laakiin kuwa riwaayad jilaayo masoomo wax la riwaayad oo magac daraan oo dhaqankeena wanaagsan aan Soomaaliga aan ahayn ka tarjumay waxay caruurta waa in laga reebo sababtoo waxay baranayaan wax xun qoysku wuxuu baranaa qof sooman oo maanta aan soomin aabbo macnaha family isqiyaamayo waxyaabo aan wanaagsaneyn oo dhaqankeena islaamka aan ku habooneen bal taa bedelkeeda waxa laga rabaa qoyska inay waxyaabaha khayrka ay dhageystaan muxaadarooyinka Quraanka bisha waa in guriga la nooleeyaa waxa lagu nooleynaa khayrka iyo barwaaqada waxa lagu nooleynaa Quraan akhrin muxaadarooyin ducooyin marka nolosha saas in noolooneeyo quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko imaam al-Ghazali ilaahay raali ka noqdo wuxuu dhahaa caruurta waa amaano qalbiyadooda waa bog cad wixii lagu qora ayaa qaataan macnaha caruurta waa amaano imaam Ghazali ayaa laga hayaa ilaahay raali ka noqday sababta cunuga yar waa amaano sababta waxa uu kala ogyahay male maanta wixii loo sheegay ayuu ku qormay qalbigiis waxa ficilka hooyada sameynaysa aabaha sameynay hadduu ficil wanaagsan yahay waxa wanaaga caruurta sameynayaan hadduu mid xun yahayna waxa aabihi iyo hooyadii ayuu ku dayanaa qoysaska muslimiinta inay wanaagsanaadaan aabaha bishaan oo waxyaabaha kale oo dadka qoysaska aan wanaagsan waxyaabaha jaadka iyo waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo iska xaaraanta cuno inay bishaada ugu yaraan ay joojiyaan caruurtooda la qeybsadaan barakada Ramadaanka iyo ducooyinka bal laakiin mararka qaar waxa arkay aabbo jaad soo qaadanaya caruurtiisa ku qaylay agteeda bal suxuurta sugay caruurta maxay barteen waxay u arkayaan jaadka waxyaabaha la cunayo inuu aabbo sameynayo aabbo sameynaan iyagana way sameynayaan wax u fiican ay moodaan waxaan ma moodaan waa arkaysa hooyo bisha Ramadaan marka la afuro kadib iska baxayso magaalada waxyaabo aan wanaagsaneyn aadiis macnaha meelaha waxa la dhaho TikTok-yada iskaga duubaan dhalinyarada iyo waxyaabaha kale aan wanaagsaneyn hooyo cunug muxuu qaadanaa ilaan waa meel cad waxa loo sheegay warqad waa xaash qormis waa qalbigiis waxa uu qaadaa wax wanaagsan xumaan mu qaadanayo caruurtuna hogaamiyaasha biri hadii hogaamiyaasha biri naga helaabaan yaa noo hogaaminayo ummadeena ummadda islaamka muslimiinta imaam Xasan al-Bisri wuxuu dhihi jiray qofkii gurigiisa ku toosiya cibaado
الله ayaa bulshada u toosinaya macnaha guriga cibaado ku dhisan guri barwaaqaysan ayuu noqonaa guri aslubaysan guri mujtamaca dhan ka soocan oo khayrka iyo barwaaqada laga dareemayo laakiin guriga xumaan iyo waxyaabo kale lagu sameeyo rabadaan ahaat ama ahaanin ilmahaas ilmo wanaagsan ma noqonayo qoyska qoys farxsan ma noqonayo waxyaabaha rabadaanka khayrkiisa ayay kamid tahay insha Allah mowduucu waa aad u dheer yahay halka ayaan ku soo gabagabaynayna ilaaha naga dhigo qoys barakaysan oo isku faraxsan bisha rabadaan ka faa'iideysto cibaado iyo amal wanaagsan ka faa'iideysto ilaaha naga dhigo kuwa rabadaanka ka faa'iideysto loona dimbi dhaafo